kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka Soomaali Cable Studios magaalada Zurich ee dalka Switzerland magacaygu Cabdirashiid Buure ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo idinkaga imaanaya magaalada Zurich oo tijaariyada Soomaaliyeed ee wadanka Switzerland waxaa marti igu ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo degan magaalada Zurich ee wadanka Switzerland هذا برنامج كأنه حنا كوفنا قيننا ومورها جالية الصوماليات يكون نقل وطن كان سويسرلاند كارهان قبل كانوا دقنها زوريخ لبويل أو دليراء أو كم إذا دليراء سيد وين لو يقعنا قبل كان زوريخ أي جعلها إن التلفزيون كان سومالي كيبل إن شاء الله أنا كوفنا قينه أهمها دليراء يسيدوا كله قاب نولات كوطن كان سويسرلاند سيدوا كله سامين تدور الشديد كذا على دولة الصومالية oo kamid ah doorashooyinkii ugu cuslay ama ugu hadalhaynta badnaa qaaradda Afrika gaar ahaan ummadda Soomaalida ee iyagu ku kala nool daafaha dunida hadaba aan ku bilaabo Bashiir Cabduqaadir Bootaan iyo sidoo kale Axmed Ali Sibriye ayaa marti iyo sida aragtaan daawadayaal waxaan jeclahay markii ugu horeyso Bashiir Cabduqaadir Bootaan inaan ku soo dhaweeyo Soomaali Cable TV maasanid Cabdiguure runtii waa ku dhawahay telefishinkan Soomaali Cable مشوينتي داوني سنة عليها هذا السلام. وقتها وأنا كعقدنا بشير سام نلصق عنا بريء وقدم بيه وحجرة هذا العين حب له يجوح كسب حياتك كصومالية يكون نور ضعفها الدنيا طبعا كو أدن دور الشركة على الصومالية أو لجوجو إلى يدور لبا أسبوع كدوات وحى كهل لي دور الشركة سامين تدا dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ka mid tahay dalkan Switzerland oo sida weyn ula socda xaaladda dalka Soomaaliya bal ka waran doorashadaas iyo sida aad shakhsi ahaan ay ku taabatay runtii farxad ay ahayd runtii waxay u dhacday sidii loo baanaa doorashadaasna ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtana runtii aad ugu farxeen qaabkay u dhaceen iyo dimuqraadiga iyo qaabka xilwareejinta iyo weliba doorashada ka dhacday oo ahayd mid runtii ummadda Soomaaliyeed ay guul u aragtay qaab kasta ahaataba shacbiga Soomaaliyeedna ay taageero weyn u hayeen isbeddelka ka dhacay dalka Soomaaliyeed waa tahay su'aashani oo kale su'aal caynkeeda Axmed Ali Sibriye ayaan ka hordhigaya oo kamid ah dhalinyarada Suuriya sida weyn looga yaqaan Axmed oo sida la socotay doorasho ayaa dhacday wadanka isbeddel ayaa ka dhacay madaxweyne cusub ayaa yiri si qurux badan ayuu madaxweynihii hore wadanka uga taxilka u wareejiyay wali calaamad saarkii ma dhicin marka waran dhinacaada wad la socotay doorashada iyo qaabka u dhaceysay maxaad ku macnayn lahayd adigu dhinaca doorashada goorma ku dhamaasan tahay adiga iyo daawadayaasha iyo telefishinka waa salaamaan doorashadii Soomaaliya ka dhacday waxay ahayd doorasho lagu kala guuleystay ma ahayn doorasho lagu kala adkaaday Soomaaliya waxay cagta saartay dhabihii wadamo badan oo Soomaaliya maanta ciidamo u soo diraya ama diris la waxyaabo inay ka dhacaan maanta iyo bari looga fadhin ayaa Soomaaliya ka dhacay doorasho ka dhacday madaxweyne xil ka dhigay mid kale ku wareejiyay si dimuqraadiyada aan buuqi qeyr lahayn aqlabiyad ah aqbalaad ah marka kii baxran mudaan mudan yahay kan yimid soo dhaweyn mudan yahay marka madaxweyne waxaan la soo dhawaa madaxweyne xilka ka dhigay si dimuqraadiga loo guuleystana waxaan mudan madaxweyne ku maadsantahay intii dalka iyo dadka waa soo shaqeysay waa tahay Axmed waa tahay sidaan la socono adduunka aan ku noolnahay waxa bedelan dhalinyaro Soomaaliya waxa lagu qiyaasaa 70% inay dhalinyaro yihiin saameynta ugu badan ama dhibaato hadii ay dhacayso waxa ay waxyeelada ugu badan ka gaarto waa dhalinyaradu saameyn intee leeg ay ku yeelan karaan isleedahay dawladdan cusub oo dabcan lagu tilmaamo dawladda ugu dhalinyarada badan ama dhalinyarada ugu badan ay taageero ka haystaan horta dhalinyaradu wada dhabarka ummad waliba qarni jooga iyo mid ummad walba adduunku noolaanta in dhalinyaradu saameyn buuxda ku leedahay Soomaaliya hadii laakiin qofka dhalinyarada uu asagu aamino inuu wadanka asagu leeyahay asagu mudnaanta goobaad si dalkiisa laakiin haddii adigu mar walba wadankaaga dibad joog ka noqoto oo meel walba masiirka looga talinayo waad aaminto inaad ka qayb geli karto marka dhalinyarada waxa baabiyo waxa 25 sano wadankan waa burbursanay 22 sano dictatoriyad iyo awood kala gacanta ku haysay marka nin magacaabay iyo nin rabitaan kala ku yimid laakiin hadii qofku uu aamino horta waa inay dhalinyarada ayada kalsooni siisa ay aaminta waxaan inay qaban karaan dalkan uu dalkoodii yahay inaan laga xigin inay tartami karaan inay ka qayb geli karaan wadamada maanta dunida ugu waaweyn iska dhaaf dal adduunka saameynta ku leh
ingiriiska rag 22 jira oo wasiirada midwadka marka dalka ay maamulaan maana dunida inay hagaag diyaar u yihiin marka waa filaya fariintaadu inay gaarayso dhalinyarada Soomaaliyeed amaba ay hadda ina daawanayaan Bashir Cabdiqaadir Bootaan ayaan u imaanayaa xogaal ayaa tahay wadanka inta badan waad joogtaa Soomaaliya iyo Switzerland waad ka warqabtaa labadaba walow aad bariga ugu dambeysay joogto wadanka Switzerland waxa baarlamaanka Soomaaliya golaha shacabka u badan yahay dhalinyaro markii ugu horeysay taariikhda inta aan xusno maxay ka bedeli kartaa islaada Bashir oo dhalinyaradaasi golaha shacabka ku batay amaba hadda ugu saameyn badan ku leh baarlamaanka Soomaaliya bismillaah horto dhalinyarada waa soo sheegay Axmed Cali waa lafdhabarka bulshada Soomaaliyeed dalkana awoodiisa iyo aqligiisa waxay ku jirtaa ama xooggiisa dhalinyarada waana waxa bedeli karo mustaqbalka siyaasadda maanta jirta dadka bedeli doonaya noqonayaan mustaqbalka wax weyn ka bedeli karaan dhalinyaradu waa inay marka dadka ruucadaaga ama siyaasiyiinta ama aqoon-yahanada maanta odayaasha waa inay u tababaraan dhalinyarada muwaadinimo inay mataqaanaa dalkooda ay difaacdaan dalkooda inay wax ka noqon karaan mustaqbalka baarlamaankana runtii dhalinyarada maanta u badan fursad ay haystaan inay ka faa'iidaystaan oo ay waxbarasho iyo cilmi iyo intaba mataqaanaa ama siyaasadda waddanka lagu hagayo ay aada xoog u saaraan dalkan ay wax ka bedelaan mustaqbalka si markaas dhalinyarada Soomaaliyeed ay jaaniska ugu horeeya mustaqbalka ay noqon karaan inay dalka madax ka noqdaan waa tahay Bashir waa mahadsantahay waxaanu ka hadlaynaa dhalinyaro weli dhalinyarada ayaanu daba soconaa weli daawadaya barnaamijka Somali Cable TV codka jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Switzerland ayaanu bartaan kaga jirnaa oo ay marti ugu yihiin labadan nin ee dhalinyarada ee reer Zurich dabcan wadanka Switzerland Axmed Cali Sibriye iyo Bashir Cabdiqaadir Bootaan أحمد أنا إيمانيا دنيرة أيام ولي كجرنا دنيرة الصومالية أيام كهذلنا ودكي أي سامين كوي شنقار عن كل شعبك أيام كهذلنا وحنو إيماننا ودك كنا لنا جارهان قبل كانوا كنا لنا ليرة الزورخ دنيرة الصومالية لفرق بدنا يا كنا إسكوارك مجرو أنت عن كوارك بك ميديا هم مجرو حرير ودحيل دنيرة سيدو كل جالية حب بدن أو أمورها سوى جهده سيد أندريم ياهو مجرتو أرنكاس بالفافين كسي داودياش التلفزيون كسومالي كيبل السيدة اللي هو بود كرا أما إذا لا يراد ذلك سويسرا قالها رجل السوق حلم كرا محاسب السلادة ولو بعين السيدة اللي يراد عن يسوق على إعلان كلا بعد وحن ما كان هذا قبل كزوري سومالي لو إنتان وح لو بود بين حاجة وحياة كهرباء إلا فهم دنيته قبل كان من يراد ذكر ولي أوبادن ضد يرى أوبادن عديكن لكن إنسان إسكو حركه ذي جاليد لو بدبن حامي ما إن كهذا بالباهيدا لا إسكو قبلنا بدو مركب باهيدا أنا قاملو حلوان كرنا وحاي من المدن تاعي وح دمتين إسكو فرنانتين وقتها وطبعا ما هو الوصف اللي يجوب تقربها اللي بعتها صحيح سبسوها صلوا كلام بعض السنين هاي نور بنيك كلا سكر وقتها أيضا هذا باهي أساسية جبته بتقف مركو دال كيسة يدل كيسة وكسر تجو وحو وين يا قيمة نرش كيسة ومهم زين دال كاجي هالكاجي أنت مركاتي ماضي وحصل وحكو بدلاهي إلى شوية مركا أفكي دقن كي الدين تروح كل وداعو ووح إلى كل اللودان هم بحث أفكار خل أي هواجرات سنجر أي عدنا وحامود إلى سن من ماذا ماشوني بكيف فهم كي من ماذا أي أمور كم قل وفي مركا من موت دونسو وحمود إلى NGO كان نور كان وحكو وداعو مركا جانب نفتر كان جوا كان كجرتاي ساشفت أدو معك بدنا هؤلاء إلى خطان تاعي حتى لا تكون من برنامج سنة لكن أحمد وان كان حكى الجليل سيدا ندري منه ومركي هذه أنا قدرين سدحات هذه سبب مركي أفراد هاي ووقت وكذا عيو ولدوني يحلو الرجال إني سميان لو جرى هراء يسكت إذا سيدا ندري منه قدوميها يكوهين كوا عن ويدي حلكي موريجين دورشان مجلين طبعا وحكوي بدين دورشوا قدوميها السجالية الصومالية قبل كزورخ مروده مدحوي قدوميها كو حاول نور مودي وحكوت من دور الشاب كان على قبل كان زورخ وقت فوق وحيلتها إن مركي سدحات إن أي حسبون يسيستين أما يسنجرين دور الشاب عادي تحس محدث لهذا هو أبو عنطه يعني ما مر كجالية horta waxay ka turjumay daciiftinimo dhinaca hoggaanka لأن هدي hoggaanku dadkan sabab walba ku timaado waqti walba loo doorto hadii waqti muayyan loo doorto sano laba sano saddex sano bulshada hoggaami
haddii 3 sano kaa dhamaato waxaa muhiim ah inaad bulshada kusoo celiso ku tiraado 3 sano ama waqti la qabso way dhamaato haddaad wax ku qabatana bulshada kaa abaalmarin doonto haddii wax dhiman yihiin ama wax qabyaa jiraan haddii adiga lagu sii doortada sii wadi doonto haddii hogaanka la doortana hogaanka dhammaystiri doono marka aniga shakhsiyan arrimahan dhowr maraan laga yaabo in xubno jaaliyadda kamid ah kala hadlay dad odayaal xataa ay hadal isku soo hadal qaadin laakiin maxay kuu sheegeen haddii aad kala hadashay dabcan dhalinyarada gobolka ee saameynta lahaad ku jirtaa maxay kuu sheegeen oo ay kugu qanciyaan wax qanaacanayna ma jiraan waxaa la ninkan run sheegin been baa u qarsan haddaa qofka tiraahdo bulshadan hor imaado oo bulshadan waxaa u hayso keen oo xilkan lagu dhiibo bulshada u soo celi oo bulshada feedbackooda iyo jawaabtooda dhegayso haddaad rabto inaad xilka sii qabato sharax waxaa jaaliyadda markii la dooranayo sheekh shariif wadda soomaaliya maamudayo xasan sheekh 4 sano dhamaystay 4 bil ku darsaday madaxweyne cusub Cabdullaahi Farmaajo marka waxaan u maleynayaa iyagu laftirkooda haddaysan hadda ka bixin markii ugu dambayso waxay iclaameen maarsa inay doorasho qabaneen maalmaana ka harsan marka ilaahay hadda maarsaday waxa la iclaamiyey wax isku imaatina ma maqal marka waxaa jira in odayaashu waa tahay waa ku imaanay axmedow bashiir cabdiqaadir bootaan oo ka mid ah dadka sida weyn looga yaqaano gobolka Zurich iyo guud ahaan Switzerland sida weyn uga warqabo daawadayaal haddii aan sidoo kale raaciyo waa gudoomiye ku-xigeenkii jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Zurich doorasho ayuu ku yimid bashiir cabdiqaadir bootaan doorasho ayuu xilka ku waayay bashiir waxaan rabaa inaan weydiiyo jaaliyaddu waxay iclaamisay hadda inuu dhacayo maas sidoo Axmed sheegayba mar aan gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Axmed Dicis Daawud aan weydiiyay in doorasho ay dhacayso maas oo bisha 3 ee fowd inagu soo hayso wax badan ay kama dhinno mar aan weydiiyay qaabka ay u dhacaysana wuxuu ii sheegay in aysan ka soo qayb galeen qof aan ID card samaysan aan jaaliyadda tasiilaadkeeda aan bixin ama manaafacaadka jaaliyadda iyo waxyaabaha ku baxayo ugu yaraan 10 franc ee Swiss-ka qof aan kaar loo sameyn inuusan soo galin goobta doorashada arrinkaa ka waran adiga runtii aniga jaaliyadda waxaan ka mid ah xubin ka mid ah weli dadkii aasaaseen ka mid ah jaaliyadda gobolka Zurich waxa loo aasaasay midnimada gobolka Zurich si bulshada Soomaaliyeed halkan ku dhaqan ay danta jaaliyadda macnaheeda dad badan aan fahansaneyn qaabka jaaliyadda loo aasaasay iyo ujeedada laga lahaa jaaliyadda marka waxaan runtii aan u sheegayaa jaaliyadda waxay samaysay dastuurkaas kuma qorno in uu codeyn karo qof mataqaana aan ka mid ahayn jaaliyadda ama aanan yani arrin noocaasa ma meeshaan waa dan shacbiga ku nool meeshaan gobolka Zurich iyo carruurtooda iyo waalidiintooda iyo sidii maaragtay isaga kaashan lahaayeen jaaliyadduna ma aha shaksi waxa dadka meeshaan degan waxay ku heshiiyeen ayaa marka hore macnaha jaaliyad lagu aasaasay jaaliyadduna ma sameynin dastuurka la sameeyey waxaa sameeyey dad khubaro ah oo gobolkan degan oo odayaal ah oo laga soo shaqeeyey culumo leh odayaal leh aqoon-yahano leh dastuurkii la sameeyey marka waxay ahayd in midnimadaas qodobana laga bedelo haddii wax laga bedelayna waxaa waaye in dadku ay isku afkartaan waxaan diinta wax u dhibeynin in mataqaana waxaa ka mid ah carruurta imaarta iskuulo loogu dhigo halkan dugsiyo qur-aanka Soomaaliga la baro waxyaabaha ugu muhiimsan jaaliyadda oo aasaasa arrintaas laakiin dhicisu runtii ma aqaan waxa hadalku ka hadlayo macnaha wax dastuuri maahan shacbiga Soomaaliyeed halkan degan gobolka Zurich haddii la dooranayo dadka Zurich inta degan oo gobolka Zurich degan ayaa dooranaysa laakiin bashiir oo aan kaa dhex galo waa mahadsan tahay Axmed Dicis waa gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda gobolka Zurich jaaliyaddu markii ay dhisanto waxay u baahan tahay waxqabad waxay u baahan tahay wada shaqayn jaaliyad laba qof gudoomiye iyo ku-xigeenye waxba kama qaban karo keligood miyaanay xaq u lahayn inay maadaama mas-uuliyiintii jaaliyadda yihiin isku yimaadaan oo ay falanqeeyaan oo ay siday doorashadu ku dhici karta ka hadlaan oo ay lacagta ay sheegayaan si umuuraha jaaliyadda u fududaato miyaanay xaq u lahayn inay maxaan ku ihahdaa lacagtaasi ID kaaradaasi ay si qasaba ama ay maxaan ku ihahdaa dastuurkooda kusoo daraan maadaama jaaliyaddii ay wax isku darsi u baahan tahay dabcan magacii jaaliyadda haddii ay dhisan tahay wax isku darsi waa lagama maarmaan miyaanay xaq u lahayn marka inay u sheegaan dadka Soomaaliyeed inay lacag dhiibaan xaqiiq weey marka horta mas'uuliyadda dadka maanta jaaliyadda hoggaanka u hayo ayagaa laga doonayay inay hawl weyn qabtaan dadka reer Zurichna waxay ahaayeen inay jaaliyadda ay taageeraan oo ay wada shaqeyn ay dhex marto marka arrinta waxaa meeshaan ku cad waxaa laga gaabiyey oo reer Zurich ay ka gaabiyeen wada shaqeyn jaaliyadda iyo dadkii reer Zurich ma jiro marka jaaliyadda mar kasta waxay u baahan tahay isbedel
marka aniga waxaan ka mid ahay dadka ma lagala tashan karo waxaan ka mid ahay xubin jaaliyadda mar walbana taageersanaa kana mid ahaa xilkii aan haynana aan ku wareejinay jaaliyado badan laga dambeeyey dhicisoodna waa gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda marka ma ahan arrintan uu ka hadlayo qaabka uu u dhigay maahan meesha dad in laisku keenaa rabaa dadka in la kala fogey maaha haddii shacbiga meeshaan degan cod buuxa ay ku doortaan qof ay mataqaanaa ay taageeraan jaaliyadda waxaa la rabaa wada shaqayn dadka reer Suuriya waxaan moodaana hadda sidoo hore in dadka aysan ahayn dadka hadda waa ka soo badanay caailadii waa ku bateen carruurta waa ku bateen baahi weyn ayaa jirto oo waxqabad oo dhab ah waa runtii marka arrintaas waxaan bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Suuriya in la wada shaqeeyo oo la isu imaado arrintan ma ahan wax dhiciso uu ku gaarta waa wax la wada leeyahay jaaliyadda shakhsina ma burustaa karo marka taas waxa weeye dadka aqliga saliimka in isaa u hadlaa maaha dadka gobolka Suuriya waa in la caraadiyo oo loo sheego dhibaatada annaga aan maanta qaanaa midnimada xumida iyo mataqaana baahida weyn aan jaaliyadaha kale ay qabaan aana qabin tirabadnida iyo gobolka ugu badan aan qaarayso maanta waxaa naga fiican gobollo qaarkood oo 10 qof ay degiin marka runtii bulshada Soomaaliyeed ka faa'iideysan TV-ga waxaan leeyahay hal iska dhaafo maanta nagu filan intii mataqaana qaladka naga dhacay maanta waxaa loo baahan yahay inaan gacmo isku qabsano gudoomiye dhiciso gudoomiye dhiciso gudoomiyaha mataqaana gobolka Suuriya waxaa u muday cid kasta oo Soomaaliyeed gobolka ku nool wada shaqayn inay la dhaxmarto si aan anagu isku badbaadin carruurtana ugu badbaadsan aad baa u mahadsantahay Bashir Axmed baan u imaanaya su'aasha ugu dambaysa waqtigu waa gabagabo ayuu ugu dambeeyay barnaamijka aan soo gaarnay daawadayaal Axmed Cali Sibriye jaaliyada badan ayaa waddankani ka jiro jaaliyada dalka Eritrea Sri Lanka jaaliyada fara badan oo Talyaaniga iyo sidoo kale Jarmalka jaaliyada aad u fara badan wada shaqayn ay leeyihiin dadkooda ay maxaan ku yiraahdaa dadku jaaliyada ay taageeraan waxba isku darsadaan si jaaliyadu ay u shaqayso miyaanu shacabka Soomaaliyeed ee jaaliyadu u shaqaysaa eed lahayn oo aysan iyaga naftoodu ka gaabin wax qabadkii iyo wax isku darsigii oo aysan jaaliyadu kaliya hadii ay meel taagnaato aysan waxba ka soo bixin goro maadsan tahay jaaliyadu horta awoodda ugu muhiimsan ee leedahay shacabkeeda dhaqaalaha ugu muhiimsan shacabku ka imaana laakiin shacabku haddaad adiga 10 farno jeebkooda ku jira ku masquusho maanta inaad lacagtii keena dadku aragti kala qaadanayaan waa in adigu la timaado program iyo aragti dadka lacagta ka soo qaadayso laakiin haddaad adigu program la imaado keen 10 farno 5 farno awdi waa suurtagal in jaaliyada qaybo kamid ah ku daawanayaan maxaad is leedahay oo waa looga qaadi karaa dadka lacag hadii aad u bidhaamiso ilaa waxa taa xubin kamid ah shacabka ku nool gobolka horta intaan su'aashan ka jawaab rabaa wala gudoomiyaasha jaaliyadda iyo hoggaankeeda aan markaa fariin u diro wax walba oo jiritaankooda shaki gelinayo oo inay wax isku gooni yeeraan keenayo inay ka fogaadaan qof shakhsiyad ana rabana dooranayo iyo hebel dooranayo blue dooranayso totalmente qarab tan waxa dadku arag ana waxaan jiro 10 program dadka ay u baahan yihiin ilmaha meesha waxaa jooga ilmo yar oo u baahan iskuulo waxaa jooga waalid qalbi jilicsan oo haddii arkaan qof ilmahooda u damqanayo oo luqadda barayo oo masjidada ka saacidayo oo waqtiyada fasaxyada program u samaynayo qofka asal 10 faran keenayo 5 faran keenayo laakiin adoo waxa qaba dadka horta 10 faran keen 5 faran keen waddankan aan ku noolnahay 100 possibilities ka jirto 100 fursado ka jiro laakiin waa haddii aad taqaano qaabka fursadda loo abaaro aad bay u mahadsan yihiin daawadayaal intaas ayaanu kusoo koobaynaa barnaamijkii gaarka idinkaga imaanayay telefishinka Soomaali Cable studios magaalada Zurich waddanka Switzerland waxaana barnaamijka marti igu ahay Bashir Cabduqaadir Bootaan gudoomiye ku-xigeenkii hore ee jaaliyadda gobolka Zurich iyo Axmed Cali Sibriye oo kamid ah dhalinyarada sida weyn looga yaqaan magaalada Zurich waddanka Switzerland daawadayaal waxaanu ka cudur daaranaynaa haddii aanu shakhsiyaad magacyadooda halkaan ku soo qaadnay tanay barnaamijka noocan oo kale aanu dib ugu kulmi doono waa bahda Soomaali Cable ee waddanka Switzerland oo idinkaga tagaysa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.